waxaan kaaga digayaa insha Allah haddii aad tahay qof qaadanayo daawooyin ama xanuunsan oo dhakhtar iyo ku xiriiro please assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa walaashii Naciima Tahliil oo maanta rabto in ay idin soo gudbiso casharka koowaad oo laga rabo in aad fahantid sidii jirkaaga uu qurux badnaan lahaa ama maxaa la dhihi jiray gymka aadid uu kugu shaqeyn lahaa ama exercise-ka aad guriga ku sameysid ama hilib daarabtina isku dartid ama ina iscaateysid cashirka koowaad oo la rabo in aad fahantid oo sida uu ku saacideeyo riyada aad leedahay aad u gaartid ayaan rabaa maanta inaan idin soo gudbiyo midda koowaad waxaa waaye aan rabo inaan ka hadlo qofka bini'aadanka calooshiisa markuu cunto cuno caloosha ayay ku dhacdaa caloosha markay ku dhacdo waxaa jiro mindhiciro yaryar ah oo qaado cuntada wixii fitamiin ah wixii nafaqo leh oo jirkaaga u gudbinayo kadib markay waxaas cuntada kala miiraan wuxuu u gudbinayaa tiyubka weyn maxaa la dhahaa mindhicirka weyn oo ku jira calooshaada oo qaada saxarada u gudbinaya so waxaa lagaa rabaa in aad maalin kasta cuntada aad cuntid aad flash gareysid oo musqusha geysid taasna waxa ka caawin karo waxyaalaha aan inta kusoo sheegi doono insha Allah waxaan si kaaga digayaa haddii aad tahay qof qaadanayo daawooyin ama xanuunsan oo dhakhtar iyo ku xiriiro please ha raacin advice-ka aan ku siinayo dhakhtarkaaga u tag marka hore soo wareyso soo ogow in aad waxaan isticmaali kartid iyo inaysan aad caafimaadkaaga u fiicneen waxaan rabaa qof walba oo fiirsanaya videogeyga inuu safe ahaado insha Allah oo wax caafimaad leh inuu ka helo ma ahana is dhibaato ka soo gaarin insha Allah dhibaatada ay leedahay calooshaada oo soconin waxaa kamid ah inuu madax xanuun kugu dhaco in uu kugu dhaco bloating caloosha ku bararto in ay kugu dhaco gas in uu maxaa la dhihi jiray daal iyo tabar darre iyo energy la'aan oo aadan sidii aad wax u qabsan jirta aad u qabsanin skinkaagu isbedelo waxyaalo badan iyo maxaa la dhihi jiray cudurro badan oo ilaahay naga haye oo qatar ah ayaa laga qaadaa insha Allah waxaa ku dadaalaysaa insha Allah waxyaalaha aan soo sheegi doono in aad maxaa la dhihi jiray calooshaada ku qarasfashid qarsfal ma dhihi jirno ku qarasfashid insha Allah midda koowaad waxaa laga rabaa haddii aad tahay nin in aad cabtid biyo ilaa iyo 13 galaas maalintii iyo habeenkii isku jiro haddaa haween tahayna waxaa laga rabaa in aad cabtid 9 galaas oo biyo ah haddii meel kulul aad joogtid maybe ka badan inaad cabi kartid haddii oo qof exercise sameeyo ama gym iyo waxaas ku xiriira aad tahayna lamid waaye maybe inaad ka badan cabi kartid haddii wax ka badan aad cabtid way fiican tahay laakiin waxa ugu fiican oo inaad cabtid ay tahay at least maalintii ugu yaraan 9 galaas oo biyo ah haddaa haween tahay insha Allah haddii oo nin aad tahayna 13 galaas inaad cabtid maalintii waayo biyaha waxay u fiican yihiin jirkaaga nutritionkiisa iyo maxaa la dhihi jiray energy inuu ku siiyo oo maalintii aad ku socon kartid ama wax ku qabsan kartid waxaa kaloo la rabaa idan inaad isticmaashid subax markaa soo kacdid galaas biyo ah iyo 2 qaadoo liin dhanaan ah iyo waxaa ku qasaysaa minti I don't know waxa lagu dhaho af Soomaali intaan kusoo qoray iyadana geed cagaar ah waaye leaves geedkaas aad ku darsanaysaa and then waxa u dhaafaysaa 20 daqiiqo camal marka u dhaaftid waxa sameynaysaa waa cabaysaa adoo cunto dhan afkaaga saarna laga rabaa laakiin waxaa kaloo ku xigo oo sameyn kartaa apple tufaaxaas soo qaadanay hal xabo oo sidii geedka looga soo gooyay ah waa shiidaysaa markaa shiidid waa cabaysaa kaligiis ama liin dhanaan ku darsanaysaa haddii aad heli karin tufaax sidiisa ah kan ku jiro baakadaha aad cabaysaa subaxii 1 galaas asagana caloosha u fiican yahay waa lagu socdaa waxaa kaloo sameyn kartaa ayadana liin dhanaan iyo malab iyo cusbo isku qasaysa subaxii aroortii hal qaado cusbo ay ku leeyihiin laakiin ani waxaan ku leeyahay fariisuul ama haddii aad Soomaaliya joogtid oo kale waa isticmaali kartaa qaado yariis ah
oo cusbo ah because cusbadeena Soomaaliya way fiican tahay cusbooyinka wadankan kale ma u maleynayay in la isticmaali karo waxaas badan si bay uga dhanaayihiin zaid marka waxa sameynaysaa waa isku qasaysaa 2 qaado oo liin dhanaan ah 1 qaado malab ah iyo galaas biyo ah isku qasaysaa dan subax aroortii intaad wax kala cunina cabaysaa ayadana calooshay fiican tahay way clean gareynaysaa calooshaada ayadana waxa kale oo jira ayadana olivera ma qanaf Soomaali lagu dhaho laakiin inta ku soo sawiraya waxa sameynay waa jarjaraysaa biyo ku dhex ridaysaa karaafa biyo ah ama galaas biyo ah waxa u dhaafaysaa half an hour liina ku daraysaa liin dhanaan ku dareemo kale dhanaan ku dartid 20 daqiiqo ama nus saac u dhaafaysaa kadib waa cabaysaa hadii kale garaafa ku shuban kartaa maalintii dhan cabi kartaa ayadoo liintii iyo oliveradii wixii isku jiraan marka waxyaalahaas oo dhan ayaa caloosha clean gareeyo muhiimna waa caloosha inay clean ahaato waxa kale oo jiro ayadana caano yogurt afsan maxaa jira caano garoor caano fadhiyo caanaha fadhiya sameynaysaa fruit inta ay sida ku jarjaranaysaa marka waxa sameynaysaa subax aroortii adoo sokor ku dar fruitkaas korku ah fruit macaan ku daray like mooska oo kale hadaa heli kartid maxaa la dhahaa cambe oo kale dadka Soomaali joonka laakiin anaga inta waxa dadkan kale strawberry iyo waxaas way helaan Soomaali strawberry waxa lagu dhahaa ma la yaqaano waxyaalahaas sameynaysaa oo ku darsanaysaa marka ku darsatid insha Allah subaxiya cabaysaa cunaysaa ama habeenkii marka seexanaysid dan ayadana caloosha u fiican tahay waa lagu socdaa waxa kale oo jirta ayadana ginger Soomaali sanjabiil waxa jirta sanjabiil waxa sameynaysaa waa soo gadanaysaa hadaa heli kartid ayada oo geedka laga soo gooyay inta ku soo sawiraya oo natural ah hadaa heli kartid waa soo qaadanaysaa waa shiidaysaa garaafa biyo ka buuxsanaysaa liin dhanaan ku daraysaa labadaas waa best aan ugu jeclahay waaye caloosha haday bloating ay leedahay calooshaada dadka caloosha bararta ah tahay caloosha dajinaysaa waxay kale u fiican tahay circulationka maxaa la dhahaa bowel movement af Soomaali ma qax lagu dhaho saxarada si musqusha loo galo ee u fiican tahay ayada xitaa markaan kaaga digayaa hadii aad tahay hooyo uur leh ama hooyo naas nuujinaysa in aadan isticmaalin waxyaalaha aan soo sheegay waayo wax walba oo cuntid cunugaaga ayaa kula qaybsanayo hadii aad naas nuujinaysid wax walba oo aad afkaaga gelisid cunugaaga naas buu ka helayaa marka waxaan jeclaan lahaa hadii aad tahay hooyo uur leh ama xaamilo oo fiirsanaysa videogeyga insha Allah cuntada cunaysid bedel oo waxa sameeyay qudaarta badso iyo cuntooyinka aad cunaysid oo kale sida qamadiga oo kale ama waxa qamadiga laga sameeyay ayaa cuni kartaa insha Allah waxyaalaha isku bedelo dadka kale oo fiirsanayana sidoo kale ayaga waxa laga rabaa inay cuntadooda bedelaan dietka cuntada aan cunayno anaga Soomaali hadaa banahaybo waxaan bur ahayn ma cuno hadii canjeelo la sameynayo bur waaye mala wax bur waaye maxaa ku soo haray muufo bur waaye sabaayad bur waaye pasta bur waaye anaga dhan bur aan nahay so insha Allah burka waxa ku bedeshaan qamadi burka madow hadaa soo heli kartiin iyo qudaar badan inaad ku bedeshiin meeshii oo aad ka cun lahayn burka because burka caloosha fadhiistaa waxaasana ugu badan waxa oo qofka caloosha fadhiisiyo so insha Allah waxa ku dadaashaa calooshaada inay socoto si aad u heshid jirka aad jecleed ama maxaa la dhahaa bodigii oo dreamkaaga ahaa insha Allah khayr ayaa idinkaga tagayaa haddana waxaan idinka codsanayaa hadii aad bilowdiin waxyaalahan aniga hadda idin soo sheegay in awoodid wax walba oo bilowdid at least marka ugu yartahay 3 maalmood ama week and then wixii iska ka bedelo waana ila soo socodsiisaa commentiga igu reebaysaa ama habeenka isniinta iyo habeenka jimcada labadaas habeen waa soo fadhiistaa habeenkii 1 saac markay u tahay UK insha Allah labadaas waqti waxa sameynaysaa hadii su'aalo aad qabtid ama waxna weydiisi rabtid live ahaan ay weydiin kartaa numberkaygana insha Allah shaashadaan ku soo qoraya meeshaas ay kala soo xiriiraysaa
khayr ayaan idinkaga tegay. Assalaamu calaykum.